أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي العدو يحد من إقدامي إني أطالب عطفكم وحنانكم جودوا يجود الله بالإنعام جودوا يجود الله بالإنعام لكن عاقني بغي العدو يحد maanta way taariikhdu ku beegan tahay 7 bishii 2 2022 oo aan ku ballansanayn in uu noo bilowdo tartan aqooneedkii ee lagu hardamayay insha Allah taala waxa maanta noo daahfuri doono tartanka 2 fasal ee kala ah fasalka form 1 iyo fasalka form 3 maadada tarbiyada ayaa idin taala su'aasheeda weydiintu waxay noqon doontaa sida tan bayin alfarqa bayna alkaahin walcarraaf أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي فصلك فهم 3 سؤال جوابتي تدرس كده الكائن من يخبر الذي بواسطة النجم عن المغيبات في المستقبل العراف فإنه يخبر الذي عن المغيبات في الواقع. A boy running 180 meter per second in 2 seconds. If it is initial velocity is 0, what is the distance he run it? waxaan filayaa inaad garateen kana jawaabta insha Allah. أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي دقة تحليل صلاة كنا صعود ترتمياش فصل كفومان سؤال لي بديه ودحس فيزيكس دان جابت اسكو داي waxa waaye 180 متر fasalka form 3 waxaa idin taala su'aasha maadada ingiliishka waxay noqon doontaa weydiinta si soo socota what is homophones أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي العدو يحد بالله أنا مقعي عاد فتح على محمد كنا سؤال ترتمياش فصل كفونتري سؤال جوابتي دا اسكو دا waxaan noqon doontaa are words that have the same pronunciation but different meaning and origin waa maxay hijrada islaamka أنا مولع بالعلم لكن عاقني فصلka form 1 haddaan isku dayo su'aasha jawaabteeda waxay noqonaysaa hijrada islaamku waa in laga soo guuro dhulka gaalada lana soo dego dhulka muslimiinta